waddanka Faransiiska oo haatan la sheegayo baararka iyo maqaayadaha ku yaala magaalada caasimadda ee Paris in albaabada la iskugu dhufanayo wixii ka dambeeya maalinta Talaadada ah. Dowladdu waxay sheegtay in kiisaska oo sii kordhayo awgeed ay keenayso in goobaha ay dadweynuhu iskugu yimaadaan la xiro si looga hortago faafidda xanuunka, waxaana arrintani qayb ka ah in la xiroba gebi ahaanba maqaayadaha iyo baararka si dadka loogu qasbay in aysan guryahooda aysan soo dhaafin. Axaddii oo qura waddankaasi Faransiiska waxaa laga diiwaan geliyey kiisas gaaraya 12,565 kiis oo xaaladaha cusub ee COVID-19 ah, arrintaasi oo walaac xoogan abuuray. magaalada koonfurta ku taala ee Marseille la yiraahdo waxaa maqaayadaha iyo baararka la xiray toddobaadka ayna ka soo gudubnay, balse haatan waxaa la sheegayaa in amarkan uu si gaar ah ugu socdo magaalada caasimadda ee Paris oo wixii ka dambeeyay maalinta Talaadada ah sidaas oo kale iyadana loo xiri doono. waxaana jirta in kiisaska ilaa haatan ay aad u kordheen, iyadoona kumanaanka kiis ee haatan ku ziyaaday ay keenayso in ay sii kordhaan kuwii horay waddankaasi Faransiiska looga diiwaan geliyey, iyadoona sidoo kale tirada dhimashada la sheegayo in ay sii kordhayso. dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ayaa waxa ay ka cawdeen xayiraadaha cusub ee dib loo saarayo magaalada caasimadda ee Paris, iyagoona sheegay in waqti xaadirkan aysan xamili karin, balse dowladdu waxa ay sheegaysaa in ay qasab tahay in arrintaasi la dhaqan geliyo. wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Faransiiska waxa ay sheegtay in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay in la xiro goobaha ay dadweynuhu iskugu yimaadaan ay tahay sidii aysan dadka hal meel ugu kulmi lahayn, xanuunkana si sahlan ay isku qaadsiin lahaayeen. arrintaasi iyadoo laga hortegayo ayay sheegeen in goobahaas oo idil ay tahay in albaabada la iskugu dhufto ama la xiro wixii ka dambeeyo maalinta Talaadada ah, si gaar ah kuwa ku yaala magaalada caasimadda waddankaasi Faransiiska ee Paris.